maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa gubay raashin dhacay oo noociisu yahay bariis isla markaana dhan 100 tan. Xogayaha fulinta ee dawladda hoose Suhayb Maxamed Cali oo ka hadlay hawlgalkaasi ayaa tilmaamay in dawladda hoose ay dabagelayso cid kasta oo istiraahda isticmaal ama iibi raashin dhacay isla markaana ay doonaan. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Berbera Maxamed Ducaale Tallaabo ayaa isna tilmaamay in waaxdiisu ay dardar gelinayso guud ahaanba hawlaha kala duwan ee arrimaha bulshada ee degmada Berbera. raashin bariis ah kaasoo muddadii isticmaalkiisu ay dhacday dawladda hoosena ay mas'uuliyaddeeda qaaday inay sidii sharciga ahayd ay u gubto iyadoo la kaashanaysa hay'adda quality controlka waxaanu baaq u diraynaa si aan u helno bulsho caafimaad qabta iyo dad caafimaad qaba in dadka baayac mushtarkaahi waxyaabaha ka dhaca alaabta ka dhacday timekii isticmaalkoodu uu dhacay inay ku soo simaan sida agaasimuhu sheegay gacanta dawladda hoose shirkadaha dad iyagoo raashinka keena qolo ka mid ah oo ay soo gaarsiiyeen dawladda hoose si loo baabi'iyo iyagoo sumcaddooda ilaalinaya waanu ka aqbalnay waanu gubnay waxaan ugu baaqaynaa shirkadaha kale inay wixii raashin ka xumaaday ku soo simaan gacanta dawladda hoose si loo baabi'iyo loo gubo waxaan uga digaynaa inaanay dhicin shirkad iyadu kaligeed iska gubta raashin oo meel cidla ku gubta. Saalax Home Cable TV Berbera.